dhaqdhaqaaqa darwiishtu waxa uu ahaa dhaqdhaqaaq hubays oo iska caabin ah intii u dhaxaysay 1899 ilaa 1920 kaas oo uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan kuna baaqay in laga xoroobo gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga isla markaana la jabiyay ciidamada xabashida. Dhaqdhaqaaqa darwiishtu waxay ujeedadiisu ahayd in gobolka laga saaro saameynta ay ku leeyihiin ciidamada gumaystaha ee Ingiriiska iyo Talyaanigu isla markaana dib loo soo celiyo nidaamkii Islaamiga ahaa ee gayiga Soomaalida ka jiray markaa iyo wixii ka horeeyay ee boqortooyooyinka. dhaqdhaqaaqii darwiishtu waxa uu soo jiitay 25,000 ilaa 26,000 oo ciidan ah dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo qabiil dhamaantood ka soo wada jeeda. 1899 ilaa 1905 waxa ay heleen ayaa markaa cadawgooda koowaad ku dhawaaqay oo ahaa gumaystihii Ingiriiska ee joogay carigan waqooyi ee Soomaalida. si dhaqdhaqaaqa darwiishta loo soo afjaro ay ka bilaabeen cariga waqooyi ee Soomaalida loo soo afjaro Ingiriisku waxa uu raadiyay ciidamo kala duwan oo qabaa'ilkii Soomaalida ah si uu isbaahaysi ula samaysto oo hub iyo sahay ay darwiishta kula dagaalamaan uu siiyay iyo tababar. weeraro adag ayaa halka ka dhacay oo darwiishta iyo ciidamadii uu Ingiriisku sameeyay ee qabaa'ilada Soomaaliyeed ee kale ka soo horjeeday beelaha kala duwan ee Soomaalida ahaa ay isku farasaareen. dhifaysidii darwiishta ayaa weeraro adag lagu qaaday 1904 ilaa 1907 ilaa 1908. dhaqdhaqaaqa darwiishta ayaa halka khasaare ka soo gaaray muddada waxayna bilaabeen dagaal jabhadeed oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa. sanadkii 1908 darwiishtu waxay mar kale soo gashay qaybaha uu Ingiriisku gacanta ku hayay ee gobolada waqooyi ee Soomaalida ka mid ah. waxayna bilaabeen inay halka dagaalo ba'an ka geystaan oo ay ku farasaareen ciidamadii isbaahaysiga ee qabaa'ilada Soomaalida ahaa ee Ingiriisku hubka iyo sahayda siiyay si ay ula dagaalamaan darwiishta. halkaasoo ciidamadii Ingiriiska iyo kuwa Soomaalida ee wada socday iyo waaweyn ugu geysteen. kadibna Ingiriisku dib ayuu gobolada uga soo baxay oo goboladii xagga xeebta xigay ayuu ciidamadiisii iyo kuwii isbaahaysiga ahaa isagu sameeyayba dib la soo gurtay. ay lumiyeen taageero badan sababtoo ah dagaaladaasi markaa Ingiriisku halka dib uga soo baxay. weeraro waxay ku soo qaadeen weeraro aan kala joogsi lahayn bay ku soo qaadeen oo ka dhan ah cidii dhulka joogtay ee Ingiriiska taabacsanayd iyo Ingiriisku mukhaadaraadkii uu soo diranayay qaybo ka mid ah. dagaalkii koowaad ee dunidu markaa uu bilaabmay waxa uu Ingiriiska ku yeeshay saameyn oo dareenkiisii ayuu dhan kale u rogay. Ingiriisku waxa uu duulaan adag ku soo qaaday fariisimadii darwiishta ee Taleex iyo intii u dhaweeyay agagaarkayga ahayd. halka markii Ingiriisku uu ku soo weeraray diyaaradaha khasaare weyn baa ka soo gaaray ciidamadii darwiishta waxayna ahayd xaruntooda koowaad. walow aanu xilligaa ku dhimanin sayidkii waa uu ka badbaaday duqeymaha uu Ingiriisku soo qaaday. dhaqdhaqaaqii darwiishtu waxa uu ahaa dhaqdhaqaaqii darwiishtu waxa uu ahaa waqtiga ugu saameynta badnaa uguna dhiigdaadadka badnaa ee la iskaga celinayay qorshayaashii reer galbeedku ay wateen ee kiristamaynta bulshada Soomaalida ahayd. wuxuuna sidii ay u qorsheeyeen fashiliyay sayidku oo dib u dhigay badan oo ilaa maanta aynu joogno arrimihii wajiye kala gadisan leh waa kuwa ka socda gayiga Soomaalida. dagaalkii 100 ilaa 1904 waxa weeraro adag ay ka dhaceen goobihii markaa uu gacanta ku hayay sayidku. Ingiriiskana halka gumaad adag baa ka soo gaaro ilaa 200 oo nin baa lagaga dilay oo dhigta dhiiga loo diray xataa ilaa janaanadoodii kuwii ugu sareeyay ahaa.
ee gumaysidiidka ahaa iyo kiristamayntii bulshada Soomaalida in la kiristaneeyo ay reer galbeedku doonayeen waa in yar oo kamid ah xoguhu aad bay u badan yihiin balse maanta intaasaynu ku soo khatimaynaa